madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka qayb galay shirweynaha wada tashiga madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed kaasi oo 29 bishan ka furmay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa uga mahad celiyay shacabka iyo madaxda dowlad goboleedka Galmudug soo dhaweynta diiran iyo martisoorka wanaagsan ay u sameeyeen madaxda heer qaran iyo heer dowlad goboleed ee shirkan ka qayb gashay. madaxweyne Farmaajo oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay shirkan ayaa sheegay in dowladda federaalku ay dadaal badan ku bixisay wada tashiga dhameystirka hanaanka doorashooyinka iyo kheyraad wadaagga dalka isagoona sheegay in dalka ay ka qabsoomi doonto doorasho shacabka Soomaaliyeed ku qanacsan yihiin. ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay dalku meel fiican uu ku socdaa waxba yaan la qalbi jabin mas'uuliyiintii dalku ugu sarreysanahay waxaan ka fakaraynaa danta guud yaan ka fakaraynaa danta shakhsiga ahna kulliba ku balan inaan ka tagno waxaan soo wadnaa ma aha wax ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliyeed iyo sumcadda Soomaaliyeed u daran noqon mayso insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. waa macluumaad soo jiray waa macluumaad aan ku soo dhex jirnay oo aan ka shaqeynaynay iyo mustaqbalkii oo lagu kala fakir duwan yahay sidii lagu gaari lahaa waana caafimaad haddii la kala fakir duwan yahay oo qof walba uu haysto fakir gaar ah waa caafimaad muhiimku wuxuu yahay in aan ogolnahay inaan isu imaanno fakirkii aan isu geyno waxa danta dadka ah ama danta dalka ah inaan ka shaqeyno. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre oo isna khudbad ka jeediyay shirkan ayaa uga mahad celiyay shacabka iyo dowlad goboleedka Galmudug soo dhaweynta diiran iyo martisoorka ay u sameeyeen martida ka qayb gashay shirkan. maamulka iyo shacabka Soomaaliyeed ama maamulka iyo shacabka dowlad goboleed kamid ah dhulka Soomaaliyeed markay midoobaan iskuna tashadaan kana fikiraan inay isu tanaasulaan waxay muujinaysaa in si degdeg ah horumar lagu gaari karo. reer Galmudug ayaa taasna iftiimiyay oo idin hambalyeynaya reer Galmudug hadii madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle oo madaxda qaranka la qabay mahad celinta iyo bogaadinta shacabka iyo dowlad goboleedka Galmudug ee martigelinta shirka ayaa iyaguna sheegay inay muhiim tahay in dalka ay ka qabsoonto doorasho heshiis lagu wada yahay waxaana sheegeen muhiimadda ay leedahay in wax waliba laga hormariyo isu tanaasulka iyo ka shaqeynta danta guud. shirweynaha wada tashiga madaxda heer federaal iyo heer dowlad goboleed oo muddo ka socday magaalada madaxda Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa lagu lafaguray qodobo muhiim u ah wada tashiga heer federaal iyo heer dowlad goboleed sida hanaanka geedi socodka doorashooyinka ammaanka iyo dhaqaalaha dalka. Cabdinuur Maxamed Axmed agaasimaha warfaafinta iyo xiriirka warbaahinta madaxtooyada qaranka ayaa warbaahinta u akhriyay warmurtiyo si wada jir looga soo saaray shirkan. waxaa shirku adkeeyay midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed. lambar 2 shirku wuxuu isku raacay in la sii dardargeliyo wada shaqeynta dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah ee xasilinta dalka iyo la dagaalanka argagixisada. shirku waxa uu kaloo isla gartay in la sii xoojiyo arrimaha horumarinta dhaqaalaha iyo geedi socodka dhameystirka deyn cafinta Soomaaliya. madaxdu waxay isla meel dhigeen in dalka ay ka dhacdo doorasho ku qabsoonto waqtigeeda oo lagu wada qanacsan yahay. madaxdu waxay ku heshiiyeen in la sameeyo guddi farsamo oo ka kala socda dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah. guddigaas oo ka soo baaraandegi doona talooyin la xiriira hanaanka iyo habsami u socodka doorashooyinka dalka. madaxdu waxay isku raaceen in shirka labaad la isugu yimaado magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug 15 bisha August 2020 si loo dhameystiro geedi socodka doorashooyinka dalka. shirku waxa uu u mahad celiyay dowladda iyo shacabka Galmudug soo dhaweynta diiran iyo martigelinta wanaagsan ee u sameeyeen madaxda iyo wufuudda Soomaaliyeed ee ka soo qayb. sidoo kale shirku wuxuu bogaadinayaa dib u heshiisiinta ka hana qaaday Galmudugta cusub taasoo ay ka dhalatay inay martigeliso shirkan wada tashiga ah ee looga tashanayo ayaha Soomaaliya. taasi waxay ku timid hogaaminta wanaagsan ee madaxda Galmudug iyo bisaylka ay gaareen shacabkeeda si nabadda iyo horumarka salka loogu dhigo.
ugu dambayntii shirku wuxuu u mahadcelinayaa beesha caalamka kaalinta muuqata ay ka geysanayaan dib u dhiska iyo horumarinta dowladnimada Soomaaliya.